السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkan aad nagala socotaan waa telefishinka Somsad magaalada Toronto. maanta waxaa halkan aan kula kulanay engineer Saciid Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Saciid Dafuuje oo ah nin siyaasi ah siyaasadda Soomaaliya iyo sida ay isu bedbedelayso ayaan rabnaa inaan wax ka weydiino. engineer Saciid ku soo dhaw. هذا شيء دكتور سلام. waan gartay haddaan wax ka weydiiyo xiisadahan siyaasadeed hadda ka socda gobolada Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka sidee bay kula muuqataa maxaa xal oo hadda arrintaas laga qaban karaa meesha xal marayo cabdi rashiidow waa mahadsantahay horta su-aasha ay weydiisay waxaan rabaa inaan kuu sheego Soomaaliya xiisad siyaasadeed baa muddadan hadda ugu dambeysay ka socotay guud ahaan xiisadda siyaasadeedna waxa ay ka dhalatay isdiidmo dawladda federaalka iyo maamulada gobolada arrintaasi mudday aad u kacsanayd dawladda federaalku wax ilaa iyo hadda xal ah oo arrimihii la isku hayay ay magaranaysaa ka gaartay ma jirto wax hadda consensus ah oo ay la timid oo ay dadkii ay ku qancisayna ma jirto laakiin waxa aad moodaa inay dawladdu hadda go'aan ku gaadhay oo lagula taliyay in ay ka aamusto arrimaha siyaasadeed oo socda wixii iyadoo hawl oo ay qabsan lahaydna iyo sida waxay u aragtana ay shaqadeeda iska wadato laakiin ay miidiyaha ay ka joogsadaan arrintaasi sida dawladdu ay u malaynaysa ma aha dadku way ogsoon yihiin inaan wax siyaasadda iska bedeli jirin siyaasadda dawladda Xasan Sheekh ilaa hadda wax iska bedelay ma jiraan wax ilaa iyo haddeertaan garawsho ah oo arrimihii la isku hayay oo ama dastuurka ha ahaato ama maamuladii dhismahayay ha ahaato ilaa iyo hadda wax garawsho ah oo ay ka keentay oo ay ka ogolaatayna ma jirto laakiin waxay bedeshay qaabkii siyaasaddeeda ay u waday oo in ay dadkii miidiyaha ka hadlayay dawladda ka tirsanaa iyo madaxweynaha naftigiisiiba inay tunkooda gaabiyaan laakiin hawshoodii ay sidoodii u wataan taasay dhalisay example waxaa kuu ah ilaa iyo haddeertaan dawladdu way ka wadaa xasaraddii ay ka waday Kismaayo ilaa weli isdilkii iyo dadkaan in weli la isku laayo oo dadka dhexdiisa uu dagaal ka dhaco weli dawladdu kama ay tanaasulin weli lacagtii ay ku bixinaysay waa ku bixisaa weli dadkii ay keentay oo buuq iyo rabshada ka waday waa ka wadaan waxaa kaloo dheeraya oo dawladdu dhowaanahan ay bilowday oo iyadan ay wadaa maadaama maamulka Puntland uu yahay laf dhabarta koowaad oo ku dagaalamaysa nidaamka federalismka in Soomaaliya laga hirgeliyo dawladdana go'aankeedu wuxuu noqday in iyada naftigeeda lala dagaalamo oo laga shaqeeyo si iyada naftigeeda loo burburinayo waxyaabahaasi sida ay dawladdu ugu tala gashay inay ku burbursan wax ka mid ah in dadka goboladaasi degan dhexdooda carqalad laga abuuro markii la isku diro markaasi qaar iyagu ay xaggooda soo aadaan si loo burburiyo wada jirka ummaddan example waxaa dhacay qolihii ugu horreeyay dawladdu way u dirtay maamulka Puntland waxay dirtay dad ay u dirtay in ay sameeyaan isma aan jirinin oo xamar lacag loogu soo baxshay waxaa ka mid ah nin la yiraahdo Gardawo oo xildhibaanadii awal dawladdii hore ka mid ahaa oo xildhibaanadii hadda waayay loona soo diray maartay maamulka Jubbaland maamulka Puntland ragii loo soo diray ka mid ahaa oo inta tagay ninkii xildhibaannimadii markuu xagga tagay wuxuu wax iibsatay inuu noqdo suldaan maamulka waa aan ognahay maamulka Puntland waa la socdaa waana ogsoon yahay arrimahaasi waana loo soo sheegay si fiican bay uga warqabaan waana ka digtoon yihiin kuwa kalena waa soo socdaan oo waa soo aadan yihiin qolihii kaleeto oo Jubbooyinka loo diranayo waa jiraan kan annagu si xoogaalaan u ognahay meesha laga soo diray waa ka warqabnaa waxaa laga soo diray xafiiska wasaaradda gaashaandhigga waxaana hawshan soo abaabulay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga waxayna ka mid yihiin waana ogtiina wasaaradda gaashaandhiggu ilaa iyo in muddo ah iyaday ahayd marinka loo marayay dhibaatooyinka gobolladani loo geysanayo oo dhinaca isdilka iyo xabadda iyo taakulaynta dhinaca colaadda waad ka warqabtaan muddo inay Kismaayo fadhiyeen wasiirka gaashaandhigga taliyihii ciidamada taliye xigeenkiisii
waxaasoo dhan ninkan backgroundka gadaaluu ka shaqaynayey isagaa ka soo shaqeeyey arrintaasi waanu ka warqabnaa isaguna waa la weydiiyey arrintaasi markii la weydiiyeyna waa u qirtay inuu soo sameeyey waana ku khaldamay buu yidhi arrimahaasi marka horta waa sida dawladdu hadda ay si silent ah iyadoo aamusan ay u shaqeynayso Saciid engineer maxaad u caddayn u haysaan arrimaha in dawladda federaalka ka dambeysay waxaan caddayn u haynaa dee ninkii waa lala hadlay ninkii naftigiisii soo diray awalna waa ka warqabnay annaga meesha dad baa noo jooga xildhibaanaa loo joogo meesha jooga isaga naftigiisii waa lala hadlay isaga naftigiisu waa qirtay markii horeeto inkastoo isku dayey inuu inkiro waa uu qirtay dadka waxaan sameeyeyna kulligoodoo dhan xamar bay ka yimaadeen hawshaan dadka sameeyey oo ku dhaqaaqay xamar baa laga soo diray lacagtana xamar baa laga soo diray qofka lagu caana shubay oo beenta ah oo laga sameeyeen xamar baa laga soo diray xamar buu ka yimi ma aha wax gobolka dhexdiisa ka dhashay maaha maamulka gobolkuna waa ay ka warqabaan oo si fiican bay u ogsan yihiin midda kaleeto beeshiina waa ay diiday dad yarahoo si kaleeto wax loogu sheegay maahane iyo dad lacag la siiyo xoogaaya maahane beeshii waxaas waa ogtahay waayo beeshu waxay leedahay isin soo jireena oo gobolka laga yaqaano oo dawladda kore ka register garaysan oo international community ay og yihiin marka waa wax iska fawdaha waad garanaysaa inay tahay wax maaragtay laga soo shaqeeyo looga soo shaqeeyay waxaan raboo kala waxaad eedeynaysan wasiirka gaashaandhigga miyaad eedeynaysan mise waxaad eedeynaysan madaxweyne xasan sheekh maxamed ma aaminsanin annagu wasaaraddu inay samaynayso wax ka madax bannaan dawladdu wixii ay samaysay baa wasiiradu samaynaya waxaad ogaataa wasiiradu waa political organis waxa ay political figures halkan joogo waa political members dawladda wey waxa ay samaynayaan kulligood oo dhan waxay lu kuleeyihiin arrimo siyaasadeed marka ma dhici karto wasiiradu waxa ay sameeyaan waxa accountable u ah dawladda taasaan marka ku caddaynaynaa inay annagoo ogsoon weliba xog hoose u og haddana dawladdu iyadu ha beeniso iyadu inay ka dambaynin lakiin annagu waa ognahay annagu ciddii noogu jirtayna waan ognahay raggii ka soo shaqeeyana waa ognahay waana ka wada hadalnay mana ahana wax qarsoonna ma muxuu markaa maamulka Puntland engineer Saciid muxuu maamulka Puntland arrintaa wax tallaabo ka qaaday oo aad loo sheegi kartaa inta hadda aan ogsoonahay maamulka Puntland arrintaasi aware bay u ahaayeen annaga iyaga noogu xogolsanaa markii hore arrintaasi way ka warqabeen ilaa hadda cid maamulka Puntland ka tirsan oo dadkaasi la kulantay oo macnaha aragtay oo ama ka qayb gashay waxa ay sameeyeen ma jiraan waan ogyihiin maamulka dhan wayna monitor garanayaan way la socdaan hadda maamulku qofku waa iska xor hadduu meelihiisa iska marmaro oo yidhaahdo waxbaan ahay wax sheegto iyaga wax macno ay u samaynaysaa ma jirto qofku waa iska xor laakiin haddii ay bilaabaan waxyaabo khalkhal gelin kara ammaanka gobolka hadda markaasi maamulka gobolku wixii la gudboon buu ka samaynay isbuucan waxaa saxaafadda ka hadlay ex prime minister cabdirasaaq xaaji xuseen arrimo badan buu ka hadlay jubbooyinka ayuu ka hadlay wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda dawladda federaalka ah sida arrimaha dibadda oo kale inay ku guulaysatay jubbooyinka in hawlahooda loo daba fadhiisto inaan loo baahnayn igad seebaad u aragtaan idinku arrintaas inay halkaa uu cabdirasaaq saa u dhigo wallahi horta cabdirashiidow horta cabdirasaaq xaaji xuseen mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waa nin oday ah raggii xornimada Soomaaliya qayb badanna ku lahaa goboladaas anagu aanu ka nimidna oday Soomaaliyeedna ah madaxdii hore Soomaaliyeedna ka mid ahaa waqtigii Soomaalidu ay fiicnayd oo Soomaalidu ay Soomaalinimadu ku jirtayna ku soo koray oo xorriyadii waqtigii ma garanaysaa la raadinayay iyo ku ahaa dhalinyaro aadna uga soo qayb qaatay maartay ururkii SYL iyo ma garanaysaa iyo xornimo raadintii waqtigii uu dawladda ahaa isagu oo uu mas'uulka ahaa waqti Soomaaliya ay wali fiican tahay bay ahayd intii ka dambeysay oo kacaan ku dhashana mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waddanka waa ka maqnaa waddanka dibaddiisu ku noolaa Soomaaliya xaqiiqdeeda runta ah oo hadda ka jirtana isagu ra'yigiisu leeyahay waxa ay la tahay anagu ku eedayn mayno waayo oday Soomaaliyeed oo Soomaalinimo jecel oo Soomaalinimo ma garanaysaa raba weeye anagu waa ognahay waxa hadallada uu yiri inuusan cidna ku xumaynaynin uusan xumaan uga jeedin laakiin isagu aragtidiisa iyo sida ay ula quman tahay iyo Soomaali sidii ahaan jiray buu ka hadlay waana ku ixtiraameynaa waana ku xaq dhowraynaa waana mudan yahay in lagu xaq dhowro aragtidiisana waa leeyahay oday Soomaaliyeed laakiin xaaladda maanta jirta oo Soomaaliya ka jirta marka loo eego anigu waa kaga ra'yi duwanahay arrimaha qaarkood oo kaga hadlay
arrimaha saadada waxay iga weydiinaysana waxa kamida markii aan dhageystay hadalkiisa ana wax ka weydiinaya engineer Said waxa kamida marka uu ka hadlayo niman xukum doona maamulka Puntland madaxweyne Farole miyuu u jeedaa arrintaas dad badan bay ka xanaajisay sida noo sheegay sidaba aragtaa markuu arrinta ka hadlayo wallahi horta anigu arrinta uma arko wax gaar ah oo madaxweynaha Puntland uu gaar ahaan isaga ula jeedo anigu uma arko laakiin waxaan u arkaa Cabdirasaaq wax uu aaminsan yahay isagu oo ka aaminsan yahay guud ahaan dadka federalismka doonaya inuusan u arag inuu shacabka yahay wax doonaya laakiin uu arko isagu aragtidiisa inuu u arko niman doonaya xukun ku doonayay in ay iyagu abaabulayaan maamulka federalismka laakiin wax ninka la yiraahdo Farole gaar ku ah anigu uma jeedo waayo Cabdirasaaq hadda intuu Farole yimid kaliya arrintan kama hadlin waligiisu qabay ra'yigan laakiin waxaan rabaa inaan maanta halkan ka cadeeyo Cabdirasaaqna uu maqlo u dhageysto waa ku dhageysanay annaga xurma naga mudan tahay oday Soomaaliyeed baa tahay odaygayga baa tahay prime ministerkayga horaa tahay aragtidaadana maaragtay waa maaragtay waa ku wax dhowrina laakiin waddanka Soomaaliya xaaladdu sida maanta ay tahay sida adigu u dhigtay maahan baan leenahay oo ah in ay dad xukun ku doonaya ay nidaamka federaalka ay raadinayaan bal nidaamka federalismka sabab baa keentay reason baa keenay waxa rabaana waa grassroots-ka shacabka ah oo goboladaas degan iyaga raba nidaamka federaalka annaga rabna wadadahan rabna xukunna kama rabno annagaana u baahan sababtuna ma aha sabab u baahan maaragtay meel fog laga raadiyo Soomaaliya magaalooyinkii 60kii markii xornimada la qaatay waagaas magaalooyinka noo aha Soomaaliya waxay burbudhay iyagoo tuulooyin fiiri magaalooyinkii la rabay inay hore u kacaan oo la rabay population-kooda inuu kordho oo la rabay iyaga dhismahooda inuu kordho oo iyaga horumarkooda inuu kordho oo institutionska magaranaysa public institutionska oo ka dhismaya inay kordhaan iska dhaafay wixii hore u yaalay oo 60kii isticmaalku uga tagay baaba'ay oo gadaal bay u noqdeen maxaa keenay waxa keenay nidaamkii central government-ga awoodii oo dhan wuxuu isugu keenay magaalada Muqdisho dhaqaalihii waddanka oo dhan waxa lagu soo koobay magaalada Muqdisho waxbarashadii waddanka waxa lagu soo koobay magaalada Muqdisho waxa allaaliya wixii ummaddu ay u baahnayd oo dhan waxa lagu soo koobay waxay noqotay marka dadka haajiraan gobolladii oo kulli ila nolol baa la doonay in xamar la isugu yimaado taas waxay keentay gobolladii inay baaba'aan oo gobolladii ay dib u dhacaan oo ay ku baaba'aan waxa taas ka dambeysay Soomaaliya integration baa loo raadin inay isdhex gasho integrationkii wuxuu keenay oo siyaasadii Soomaaliya ay keentay Soomaali xoog wixii ay lahayd iyo dhaqaale ay lahayd waxay gelisay magaalada Muqdisho waayo noloshii baa lagu soo koobay halkaas hadda waxa ka dambeysay magaalada Muqdisho ummadda hantideedina waa lagu dhacay dadkiina waa lagu laayay waana laga sheegtay ma dhici karta marka mar labaad dadku inay ogolaadaan dadka gobolada ku nool mar labaad inay ogolaadaan inay hantidoodana Muqdisho geeyaan naftoodana Muqdisho geeyaan institutionskii waddankana uu Muqdisho noqdo taasi wax dhici kara maaha mar dambana ma dhici karto maanta waxa garanaysaa iyadoo dawladdii ay burbudhay oo aan dawlad Soomaaliyeed jirin waxa garanaysaa horumarka goboladu ay gaareen maanta magaalooyinkii tuulooyinka dib ugu laabtay iyo awal magaalooyinka maanta dib bay u dhismeen maanta meel baadiye ahaaba maanta magaalo noqday iyadoo aan dawlad jirin fiiri ba magaalooyin noqday maanta waxbarashada Soomaaliya gobolada nabadda helay waxay maraysaa maanta tuulooyinkii iyo baadiyihii maanta in iskuulada laga dhiso bay maraysaa oo dadku iyagu ay qabsadaan dantoodii oo ay raacdaan marka horumarka noocaas ah oo dadku maanta waxay u baahan tahay dawlad inay helaan intaasi ku sii garbisa si goboladii nolol ay uga jirto dadku laakiin dawlad dib u celisa oo dadka xamar ku haysa oo dadka rabta inay u taliso dadka sidii horeyba u dhacday dadka inta gaajo iyo fakhri iyo dhibaato la bado in markaas lagu xukumo lagu hayso taasi wax dhacaya ma marka waxaan leenahay arrintaasi arrimaha koos gareeyay waa inuu Cabdirasaaq anuu ma qabo inuu garan waayay hadduu arki lahaana dhibaatada jirta waa garan karaa laakiin weli isaga waxa ku jirta Soomaalinimo iyo Soomaali hal raadi laakiin Soomaali hal raadiyo on my expense aniga in lagu raadiyo Soomaali ma dhacayso aniga in carruurtayda baaba'day wax baran weydo Soomaalinimo lagu helmiyo in goboladayda ay baaba'aan oo Soomaali lagu helmiyo in dhaqaale ahaan u burburo Soomaali lagu helmiyo in institutions waddanka way xaq u lahayn baasaboor buu leeyahay xaq buu leeyahay ninka gaalka ay joogaa inuu baasaboorkiisa gaalka ay ka helo sidii shalay dhacday inuu xamar u soo aado baasaboor ogolaan mayno marda mana dhacayso mana yeelin waa gartay aad baad mahadsan tahay Saciid Fuuje sida baad u aragtaa shirka lagu qabanayo Addis Ababa
loo qabanaya arrimaha jubbooyinka iyo xasan sheekh saddexda nin ee uu magacaabay shirka u diray cabdirasaaqow inta aanan su'aashaasi kaaga jawaabin cabdirashiidow waxaan rabaa in aan arrin yar oo arrintii hore la xiriidha baan waxaan rabaa inaan iyadana aan dadka u kala faagreeyo hadalladii mudan cabdirasaaq uu sheegay waxaa ka mid ahayd oo la weydiiyey maamulka puntland cabdirasaaq wuxuu sheegay in madaxweynaha puntland uu hadda uu ku jiro arrin ah daaroodism anigu sidaa odaga u dhigay ma qabo waxaan aaminsanahay madaxweynaha puntland joogaa maantii fadhiyaa iyo kii dambe imaan doonaaba inay waajib khasaba ku tahay in ay ka shaqeeyaan nidaamka federaalka ah Soomaaliya sidii uu uga hirgeli lahaa waayo maslaxadda dadka ku jirta Soomaaliya garan uma arka marka aniga arrin lagu eedeeyo ninka la yiraahdo madaxweynaha puntland lagu eedeeyo oo loo dhigo ku dagaalamayo nidaamka federaalka oo xasan ka warwareegayo waayo xasanna waa ognahay inuusan shakhsiyan inuusan aaminsanayn nidaamka federaalka waa ognahay marka waxa aan aaminsan tahay ilaa meegan sanis waxa sanis sameynaya wixii ummaddu ku soo heshiisay fiiri xasan wuxuu rabaa marka wixii ummaddu ay ku soo heshiisay wuxuu rabaa madaxweynaha iyo dawladdiisu inay inta daba maraan waxa iyagu ay aaminsan yihiin ay fuliyaan oo khasab ku fuliyaan Soomaaliya garan cabdiraxmaan sheekh maxamuudna yaan la oran karin isaga laftiisu waxa uu aaminsan yahay nidaamka hawiyisimka sida uu hadda wuxuu wado oo uu sidii 19 wax loo waday wallahi hadda ay weydiisay anigu shakhsi ahaan I doubt shaki baa iga jira oo waan aaminsanahay anigu inuusan honestnimo ku shaqeynaynin madaxweynuhu waa aaminsanahay laakiin haddii xataa taasi laga tago at least nidaamka ugu shaqeynayo waa nidaam central government oo wax walba xamar lagu soo ururiyo oo danta xamar u adeegaysa fiiri at least oo danta xamar u adeegaysa Soomaaliya ee aan danta Soomaali guud aan u adeegay iyada naftigeedu hadda waa magaalo beelkii degan tahay maaha magaaladii shalay ay Soomaali wada deganeen iyadoo Soomaali wada degan tahay bay nolosha xamar lagu soo koobiyaa Soomaaliya oo dhibaato ku hay hadda oo reer kaliya degan yahay haddii xamar nolosha hadda waxaan ognahay dhaqaalaha Soomaaliya la siiyo kulli xamar buu galaa waxa la leeyahay waxa adduunka laga soo qaado inta loo bari tagay xamar buu galaa way gobolada kale way Soomaali ma soo dhaqaalaha xamar la keenayo wax kuma laha anigu waxaan u arkaa ala kulli xaal in madaxweynuhu isaga u taala ama arinta qabiilha uga jeedo ama ha uga jeedo inuu xamar ku naas nuujiyo xamar hadeed cidii degan bay kula u taala oo iyaga hadii lagu naas nuujinay idan noqonaysa ama ha uga jeedo diidma uu diidan yahay nidaamka federalismka laakiin sida hadda uu ku shaqeynayo waa mid hortaagan oo ka soo horjeeda nidaamkii dastuurka marka taasi waa xaqiiq weey anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha shaqada ugu weyn oo laga rabay inuu qabto inay ahayd meesha hadda uu leeyahay waa caasimadii Soomaaliya walow waxa hadda la isku khasbiyo la leeyahay waa muqaddas waa muqaddas ma jirto wali Soomaalidu run la isma sheegin xamar dadka jooga aaminsan inay Muqdisho ay tahay caasimad khasaba ay tahayna caasimad khasaba wax yahay ma jirto aan ka dhaxgalay waxyaabihii lagu heshiiyay dastuurka ku qoran miyaanay kamid ahayn injineer Saciid in caasimada laga wada hadli doono oo aan muqaddas ahayn waa ku qoran laakiin waxyaabaha xasan uu ka tagay bay ku jirtaa oo rabo inuu ka dhigto inay muqaddas tahay mana shaqeyn doonto xasan wuxuu mooday dadku inay damin yihiin oo la ilaaway dadku damin ma lama ilaawin waa loo imaanaya iyada caasimadana meel Soomaali oo dhan favorable u ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan kulmi karta oo dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin taasa caasimad Soomaaliyeed noqon doonta ee caasimada Soomaaliyeed ma noqon doonto meel qofka Soomaaliga uu joogay uu kafiil u baahan yahay oo ninka baarlamaanka joogay uu baqayo uu leeyahay haddaad codkaaga ku dhiibato iyo ra'yigaaga oo dadka aad matisho aad ka hadasho waxa raadskooda waa lagu dhibaateynaya ma shaqeynayso taasi ma imaanayso caasimada Soomaaliyeed waa laga wada hadlayaa mana dhici doonto cid lagu khasbi doona ma jirto arrinta marka aan rabay inaan ku caddeeyo waxay ahayd arrimahaasi inay jirinin cabdiraxmaan sheekh maxamuud madaxweynaha puntland waa ku khasban yahay inuu nidaamka federaalka u difaaco waa ku khasban ninkii kale oo bedelaana waa ku khasbanaanaya inuu difaaco waayo constituency-giisu saasay rabaan waana ku khasban yahay marka ma aha anigu ma aaminsanin inay tahay wax lagu eedeeyo ninka la yiraahdo faroole haddii wax lagu eedeynayo de wixii maamulka dhexdiisa ku saabsan oo gobolka dhexdiisa dadka gobolka degani waa eedeyn karaan wax waa ka sheegi karaan maamulkii jira wax waa ka khaldami karaan in la eedeeyana dadku xaq bay u leeyihiin in la bedelo xaq bay u leeyihiin waayo isagu ma laha gobolka ma laha laakiin hadda isaga madaxweyne waa mas'uul isaga ka
waxa waajibka kuwa oo gutana wixii uu guto oo sida ay yihiin u gutana waa ku amaanay wixii ka khaldamayna waa laga xisaabtamaya wadad baa goolka degan laakiin arintan daaroodismka oo Cabdirasaaq sheegay anigu ma aaminsani way u ekaan kadhaa qabiil waayo goboladii qabaa'il baa kala degan dadku anigu waa oran karaa Xasan arinta uu ka shaqeynayo madaxweynaha federaalku waa qabiil amba waa oran karaa markay isaguba arinta uu ka shaqeynayo waa arin favor u ah baan oran karaa qabiil haddii marka waa laga yaabaa isagu niyad ahaan inuusan qalbigiisa inaanay ku jirin laakiin sida uu u shaqeynayo hadda waa lagu eedayn karaa waa la oran karaa qabiil buu isaguba u danaynaya waa la oran karaa haddii marka Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed lagu eedaynayo arinta uu ka shaqeynayo oo federalismka qabiil bay dan u tahay haddii lagu eedaynayo waa lagu eedayn karaa waayo gobolada hadda maamulka samaysanaya dad ahaan waa ka soo jeeda waa u dhashay laakiin ma ahane annagaa rabna shacabkaa raba shacab ahaan bay u rabaan mas-uul buu ugu yahay inuu difaacana waajib bay ku tahay waa gartay aad baad u mahadsan tahay injineer Siciid sideebaad u aragtaa xidhiidhka dowladda federaalka iyo Somaliland iyo Djibouti maxaad ka horreeyay arrintaa iyadana waa kaaga jawaabayaa inta aan ka jawaabina su'aashaadii horeyto arrintan aan ka hormarsadayna waa jawaab yar baan ka siinayaa shirka Addis Ababa ka socda anu ma aaminsanay waxba weyni ka soo baxaya waayo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud go'aan bay ka leedahay inaanay ogolaanin marna inay Jubbaland dhisanto dadka reer Jubbalandna go'aan bay leeyihiin inaanay marnana ogolaan doonin wax federaal ka sokeeyay Soomaaliya ku ogolaan doonin arrintaasi marka waa la isku hortaagnaanaya hal la isku hortaagnaada aakhirkana waxay noqonaysaa dadka deegaanka degan waxay rabaan ninna ma khasbi karo anigu waxaan ku sheegay laakiin waa iska political move isaguna uu ku tala galay dadka uu soo dirayaana dad go'aan gaari kara ma ahan waa dad uu taladoodii already soo siiyey arrimo discussion oo ay galaan oo inta isugu noqdaan go'aan ka gaari karaan ma jirto waa gar Soomaa marka anigu arrintaasi waxaan ku sheegayaa inaan rajo laga qabinin kullu aniga iyo muuqato arrintan Somaliland iyo dowladda federaalka anigu ma aaminsan hadda inuu xiriir badani uu ka dhaxeeyo dowladda federaalka ahi Somaliland way raadisay waxayna ku raadisay qaab khaldan oo political alliance oo qabaa'ilka Soomaaliyeed dhexdooda abay ku raadisay qolada Somaliland oo joogtaana ma aha dad aqal gala waa garanaya waxa loo raadinaya inay tahay iyaga issue-goodii iyagu ay danaynayeen ama ay ka hadleen dowladdu kama hadlin laakiin dowladdu waxay u raadisay in ay ku qanciso political alliance oo qabaa'il oo hore u jiray oo dad ay u raadinayeen bay ku dayday iyaguna ma ay yeelnina dantooda wixii ay ku jirto bay ka raacdeen marka arrintaasi khilaaf bay keentay maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka ay isku fiicna waxaan leeyahay anu Somaliland waa dad walaalahaya dadka reer Somaliland mana diidanin mana nacibna uma qabno laakiin dadka Soomaaliya xaq bayna u leeyihiin Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday iyo Soomaaliya sida ay ku socoto Hargeysa caasimadii labaad oo Soomaaliya ahayd waana burburtay waana la burburiyay waana magaalahan waa loo burburiyay waa lagu dagaalamay magaaladii dhaqaalahan goboladii la burburiyay kamita dadku marka raadis bay u leeyihiin xamarna wixii ka dhacay iyagaba dadka hantidooda lagu dhacay bay ku jiraan oo hantidooda lagu dhacay inay marka gobolkooda dhistaan oo Soomaali ay waxa dambo ay isugu imaanaysaa ay noqdaan wax laga heshiiyay oo Soomaali ay ka heshiisay dawladnimada ay dhisanayso wax umadu ay ka heshiisay oo ay isku raacsan tahay inay noqoto inay demand gareeyaan xaq bay u leeyihiin arrinta go'itaanku waxa dhici karta dadka qaarkiisna Somaliland degan inay qabaan qaarkoodna inaan qabanin waa ra'yi laakiin guud ahaan xaq bay u leeyihiin waana muujiyeen gobolkoodii inay nabad ka dhigteen waa ay muujiyeen inay intay dadaali karaan ay dadaaleen dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay inay ka badbaadi karaan laakiin dhaliil meel bay ku leeyihiin maamulka ay sheeganayaan Somaliland annagu midda aanu leenahay oo aanu Somaliland aanu ku khilaafsanahay waxay tahay halka ka weydiinaya su'aal waa gartay waad mahadsan tahay injineer Siciid waad mahadsan tahay waa gartay Somaliland marka iyadoo waxa soo dhiba tirsanaysa oo dhulkoodii la burburiyay dib u dhisatay iyadoo miya xaq u leedahay inay gobolada Khaatumo timaado oo burburiso oo dad xidho oo dad dhacdo oo waxa hadda ka socda gobolada Sool Sanaag Cayn miya xaq u leedahay waxa samayso sabab aragtaa Cabdirashiidow horta arrintaasi anigu arrimaha aan Somaliland criticalka ugu ahay arrimahaas ka mid ah Somaliland wixii amaano ay leeyihiin waa dad Soomaaliyeed wixii wanaagu ay gaareen in lagu amaano bay leeyihiin wixii ay khaldeenna in laga saxo loo sheego bay leeyihiin anigu arrintaasi waa arrimaha aan ku dhalisanahay haddii Somaliland noqonayso iyagu sida ay u jeexdeen borderka Somaliland hadda borderka iskama jeexan kartid oo dad baa kula degan
haddii dadka kula deganaa dadkuna qabiil yar oo adiga ku dhex jiro oo dhexdiisa oo majority ka tahay ma waa dad degaan leh oo gobol degan oo degmooyin degan oo degaan leh qabiilna kuma khasbi kartid markay qabiil kuma khasbi karin markay qabiilka ka dhasheen ma khasbi karin oo kama xoog badnid oo xoog kuma khasbi karin sida hadday tahay Soomaaliland waxay ahayd in ay walaalnimo ku raadiso in ay ma ahan in ay iyagu intaan waxbaan samaystay khasab ba igu soo biiraysa waxay ahayd inay ka tixgeliso oo ay ka soo qayb geliso talada from the beginning inay talada ay wax ku leeyihiin haddii tii hore ay khaldantay weli haddeertaan waa dad Soomaaliyeed oo walaala oo isdhalay oo daris ah still hadday rabaan inay wax isku darsadaan way wada hadli karaan laakiin Soomaaliland waa inay ka soo degtaa meesha ay joogto maamul baan ahay qoran ay shacab tahay oo la xoogayo taasi wax dhacaya ma arrintaasi arrin u socon doontana ma aha ana I believe inay waqtigan iyaga naftoodu haddii ay niman wax kala garanaya ay yihiin inay hadda dareensan yihiin inay arrimahaasi ay u shaqeyneen waliba Soomaaliland dagaal kama dhicinin Soomaaliland dagaal ha sameeyay laakiin dagaalada ka dhacay waa dagaal yar yar laakiin haddii ay coladahaasi ay sii socdaan dagaal weyn bay noqon kartaa oo sida iyagu ay moodayaan ka ballaarta annagu marka Soomaaliland wala talinaynaa waa dad walaalahaya xumaantooda ma rabno dhibaatada ma rabno waxaan kula talinaynaa dadka gobolka degan ma khasbi kadhaan go'aan qabiil soo gaarayna qabiil kale lagu ma khasbi karo waa inay dadka Soomaaliland degani haddii ay rabaan Soomaaliland ay sheegayaan inay sida ay sheegayaan ay u dhisanto iyagu goosigaas iyo inay goosanay waa issue kale oo dadka degan u taala laakiin in ay khaatimo la fariistaan maakhir la fariistaan weli meesha dhiyada awdal naftigeeda iskhilaaf badan baa ka jira dadku inay inta wada hadlaan hadday wax ku heshiiyaan oo isku raacaan wada Soomaaliya raaci karaan haddii ay ku heshiin waayaan walaal iyo daris in la ahaado oo la isku xaq dhowro laakiin iskhasab uu jira taasaan kula talinayaa maslaxadoodina ay ku jirtaa waan gartay marka barnaamijkeena haddaynu soo gabagabayno maxaad gabagabadii iyo gunaanadkii Siciid injineer Siciid wax talooyina ka bixin lahayd sida hadda Soomaaliya guud ahaan markaad eegto wax uga socdaa gabagabadii iyo gunaanadkii anigu talo meelo badan ku wajahan oo qolo waliba ay wax ku leedahay inta hadda aan ka soo sheegnay oo siyaasadda Soomaaliya isku haya baan rabaa inaan ku gunaanado markaan ka soo bilaabo geeska ugu sheeyay Soomaaliland anigu taladeedu waxa weeye wixii siyaasad ah oo aad qabtaan waad isleedihiin gobolka maslaxad ugu jirtaa iyo danteeda waxaan kula talinayaa anigu inay walaalnimo ku raadiyaan gobolka hadday dadka deegaankii hore iyagu ay Soomaaliland u yaqaanaan hadday dadkeeda ay rabaan inay dadkeedu ay midoobaan oo wax ku midoobaan waa inay ka timaadaa dadka ee khasab kuma imaanayso inay marka dadka ay ka raadiyaan inay wada hadlaan oo wixii isku diidan yihiin ay arkaan haddii ay iswaafaqi karaanna ay ka wada hadlaan haddii iswaafaqi karinna walaalnimada laga raaco gobolka ay dariska yihiin oo maamulka Puntland haddaad diido dadka gobolka kula degan oo dariska kula ah haddaad inaad walaalnimo ka raadiso aad diido oo nabad inaad ka raadiso aad diido anigu waxaan u arkaa inay arrintaasi ay tahay siyaasad aan meel fog jirin waayo dadka aad raadinaysaan oo aad rabtaan inay maamul idinla samaystaan dadka Puntland degan bay la dhashay khasabna kuma keeni karaan Soomaali intaan la gaarina waxaa dani idinku jirtaa goboladaas dadka degan oo aad dariska la tihiin in aad nabad iyo walaalnimo ku wada noolaataan anigu marka waxaan kula talinayaa inay dadka gobolkana ay wanaagga ku raadiyaan maamulka ku dhegan oo dariska la'ana iyo midka kiilka shanaad oo dariska la oo dhinaca ka qaba in ay walaalnimo kula noolaadaan oo walaalnimo ka raadiyaan anigu intaasaan kula talinayaa goboladan khaatumo Somaliland Puntland iyo Jubaland waxaan kula talinayaa anigu dad badan oo u dhashay oo muluq ku jira baa jira oo muluqdoodaasi ay dhibaato ku tahay dadka goboladaasi degan anigu waxaan kula talinayaa dadka gobolka degan iyo maamuladooda inay midnimadooda ilaashadaan marnana ayaan ogolaanin nimanka siyaasadda ku jira oo iyagu u arka maslaxad gaara inay ku fushadaan maslaxadda guud oo dadka marna inaanay ka ogolaanin inay goboladooda baabi'iyaan oo ay dadkooda baabi'iyaan oo ay dadkooda isku diraan danta dadkooda iyo goboladooda inayn cidna compromise kula gelin wixii maslaxadoodu ay tahay oo dantooda ay tahay inay u taagnaadaan dowladda federaalka anu waxaan kula talinayaa in ay sharciga xaq dhowrto wixii lagu heshiiyey dastuurka inay xaq dhowrto
in ay ogaato dowlad Soomaaliyeed oo dhisan baa ku burbudhay khilaafaadkan mid hadda aan jirinna khilaafaad ku dhismay mayso ninkii ay la tahay inay khilaafaad u xidhiso gobolada dadka degan iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo laga raadinayo dad la isticmaalo oo hebel baan wasiir ka dhigay hebel baan saan ka dhigay hebel baan saan ka dhigay waxaasi ma idin shaqaynayso dadku xoolana ma waa ognahay mana idin ka shaqaynayso goboladana kama shaqaynayso trialka aad sameynaysaani trial aad waxba ku gaaraysaan inaad colaad ku saaisataan maahan aw wanaag ku gaaraysaan maaha waxa loo baahan yahay inaad genuine ka ahaataan mas'uuliyadda la idin dhibay haddaydan ka ahaanin ummadda Soomaaliyeed oo si kala fogeynaysaan idinkuna ayaama meelaha ordisaan waan ku dhamaysanaysaan waxa ku gaaraysaan mal anigu waxaan idin leeyahay waxa idin kaga fiican inaad taariikh fiican ka tagtaan inaad Soomaali wanaag u raadisaan inaad dadkiisa waxgalka ah oo goboladii ay ka yimaadeen waayo qofku gobolkii uu ka yimid hadduusan wax tar u ahayn Soomaaliland wax u tarmayo meesha idinku aad kala dagaalamaysan aad leedihiin qofkii gobolkiisa wax u taray hal la dagaalamo hadda qofkii gobolkiisa wax u taray hadda la dagaalanto midka gobolkiisa baabiinaya adigana ku dhismayo Soomaaliland dhismayo Soomaaliland wuxuu keenay annagu waxaan leenahay doorashada aad ku dooranaysan iyo aniga yeesmaani ah yaasaan yeeli kar taas hore loogu baabay mana la idinka yeelayo cid idinka yeeli doontaana ma jirto Soomaalinimada u soo noqda mas'uuliyaddu sida ay tahay u soo laabta mas'uul noqda oo ummadda Soomaaliyeed u noqda haddaydan u noqonin ummadda Soomaaliyeed nin walba gobolka u degay dogonaanaya nin khasbi doona iyo nin xoog ugu tagi doona midna ma jiro caalamkuna idinkuma garab siin doonaan nin ay ku garab siin doonaanna qabaa'il Soomaaliyeed in la dhibaateeyaan ma jirto in lagu waatay waxaan rabaa marka mid kale oo gabagabadeedii aan ku dhamaynay shirka inuu jiro muxuu yahay eed badan baa jirta maanta dhaweyd Cabdirasaqaan waa ka hadlay dowladaha Itoobiya Kenya anigu waxaan aaminsanahay dowladaha Itoobiya Kenya Soomaaliya burburkii ka dhacay dalka dariska ah oo adduunka waxa dal jira dadkan diyaaradaha lagu soo qaaday oo dadkayga North America yimid iyo Europe tagay oo nin walba tahriibka ku galay maahan waxaan oran karaa waa labada dal oo dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu ay ku dhacday ay ku badbaadeen ilaa iyo haddeerna waa labada dal oo Soomaali dhaqaalaha ay haysato iyo ganacsiga ay haysato ay ka jiraan anigu uma arko inay anaga cadow noo yihiin dawladdu dana waa yeelan karaan gaar waa wax jira laakiin anagu badana kalena anagu haddaan Soomaaliland waayo geeska Afrika ilaa iyo qiyaamuhu ka dhaco inuu dagaal u taagnaado oo aan ummaddu ay nolosheedu horumar gaarin ma dhacayso dawladda Itoobiya iyo dawladda Kenya waa soo baahana waxaan oran karaa Kenya iyo Itoobiya oo Soomaaliyeed waayo ummadda Soomaaliyeed mid sharci ku leh oo ku dhashay iyo mid aan ku dhalanba kulli waa la wada joogan waa lagu shaqaysanay waa lagu ganacsanay waxaan aaminsanahay dawladahaasina inay dareensan yihiin dhulkaan inay dhul Soomaaliyeed uu yahay oo Soomaaliya wax ku leedahay ee Soomaali ay ahayn cadow banaanka mid ay ahayn waxaan u baahanahay siyaasadii horeeto oo ahayd Itoobiya waa cadow Kenya waa cadow ma shaqaynayso ninkii dan ku raadinaya ma shaqaynayso labada dalba waa u baahanahay waa ku badbaadnay darsnimaan ka rabnaa waxaan ku dirarsanayn dadka Soomaaliyeed awal gumaysi bay ku jireen laakiin maanta dadka Soomaaliyeed oo goboladaas degan gumaysi kuma jiraan maanta dawladoodii bay kamid yihiin dawladii dhexe kamid yihiin goboladoodii ay maamushaan in la sii hagaajiyo oo dimuqraadiyada la sii badiyo oo dadku ma garanaysaa ay dawladii moor ay ka sii qayb galaan waa loo baahan yahay laakiin maanta maalin ay ka fiican yihiin ma jirto mar haddii dadkii lagu dirarsanaa oo aanu lahayn dadkayga la dhibaateeya maanta ayaan iyagu dhibaataysanayeen ay maamulkoodii gacanta ku haystaan oo maanta carruurtoodii wax u baranayaan oo maanta maamulkii dawliga ay ka mid yihiin oo maanta iyagii ay dawladaha naftigoodii ay xoog badan oo siyaasiyeed ku leeyihiin oo ay maanta iyagu dawladahaasi ay mathalaan oo wax ka mathalaan annagu colaadda gaarka ah oo aanu geeska Afrika aanu ka horreynaa marka maxay tahay marka dawladahaasi annagu waxaan leenahay walaalaanahay geeska Afrika nabad baan ka raadinaynaa nabad baan ku doonaynaa kiirka shanaadna waxa weeye oo iyo gobolkan North Eastern Sooxiga dadkayga baa degan dad Soomaaliyeed baa degan maanta iyaga asmaamula waa wanaagsan yihiin annaguna waa ku garab siinaynaa horumarka maanta ay ku socdaan mana ogolaanayno colaad dambayto inay dib ugu laabtaan taasaan annagu hadalkaa ku dhammaynaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ياد بومات داود ريال إنجنير سعيد محمد محمود سعيد فوجي حق فرصة ماذا وحينوها يا علي وأنا عبد الرشيدة مقالة تورنتو.